halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan. Soo dhawaada wararkeena. Qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah Villa Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeymihii Roble. walaalaha mahadsantiin marka hore eedeyntaas waxba kama jiraan. ereyga haddii uu tafsiirkeeda saxda garanayona ma isticmaaleen, sababtoo ah arrinta laga wada hadlayaa waxa weeye fashilkii ku yimid doorashada. ra-iisul wasaaruhu muddo 14 bilood uu haystay arrinta doorashada. waa ogtihiin caqabada xoogga leh ee ka jirta. mucaaradka laftooda muddo dheer bay ka cabanayeen. guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan ee doorashada hagayey waa kala dhantaalay. go-aamo isaga shaksi u ah oo dowladnimada aan u danaynayn buu qaatay. intaa waxaa dheer in uu ku tagrifalay hanti qaran oo gaar ahaan ciidamada xoogga dalku ay leeyihiin. maantana kiis baa hor yaalla. waa la socotaan warkii xalay aan soo saarnay madaxtooyada ka soo baxay. muhiimadiisu waxa weeye in la isugu yimaado shirweynihii madaxweynuhu uu ku baaqay, laga wada hadlo dhinaca doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. maadaama oo isaga ra-isul wasaarahana uu ku yimi kiiskani, waxaa muhiim ah inuu ka dabaasho oo sugo inta kiiskaasi dhammaanayo. inta ka horeysana waa la hakiyey awooddiisii iyo shaqadii. marka maanta waxa dhacayna dee kama ay duwanayn shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee madaxtooyada ka qabsoomayey. waxaan intaa idiigu darayaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa amnigeeda u xil saaran guutada 77aad oo taliye leh, nidaamkiisii iyo kala sarrayntii ciidan leh. ma jiro ciidan gaara oo ra-iisul wasaaruhu leeyahay iyo ciidan gaara oo madaxweynuhu leeyahay. waxaa jira ciidan madaxtooyo. waa ciidankaasi waa ciidanka ugu hanaansan, ugu anshaxa badan ciidamadeenna. maanta in laga been abuuro ciidankaasna waa arrin aan dowladnimadeena u danaynayn. laakiin Cabdirashiid, wixii maanta dhacay waxay ahaayeen wasiirada qaar baa waxay isku dayeen iyagoo ciidamo wata inay madaxtooyada gudaheeda usoo galaan. guutaduna arrintaa waa diiday. ilaalooyinka wasiiradu ay wataan sida caadada ahayd mar walba waxay kaga iman jireen baraha control ee ku gadaaman madaxtooyada. wasiirkuna isagoo caadi ah ayuu shaqadiisa soo geli jiray. laakiin ra-iisul wasaaraha waxa uu Cabdirashiid, adigoo mahadsan, ra-iisul wasaaraha waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in ciidamo ay ka hor istaageen shaqadiisa. marka arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa? ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. marka labaadna haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la ii diiday inuu haddana yidhaahdo waalif wax buu leeyahay iyo waxba ma leh. waxaa kale uu faray ra-iisul wasaaruhu in ciidamada qalabka sida ay isaga ka amar qaataan xafiiskiisa. marka maxay madaxtooyada arrintaas uga jawaabaysaa? wallaahi waxaa u wanaagsan isaga in uu dee dhinaca shuruucda dib ugu laabto. waddanku dastuur buu leeyahay. wuxuu leeyahay nidaam iyo kala sarrayn ciidan. meel uu ra-iisul wasaaruhu ciidanka ka soo galo oo uu ku leeyahay awood uu ciidanka isagu amar siiyaa ma jiro. dee ciidanku wuxuu leeyahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. madaxweynaha jamhuuriyaddayna waajibaadkiisa tahay. qodobada dastuurka arrimaha hagayana waan jeclahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee idin dhegaysata aad la wadaagtaan, gaar ahaan qodobka 9aad ee dastuurka ku-meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. xaaladda waxay u muuqataa inay cakiran tahay, ha noqoto xaaladda siyaasadeed ama xaaladaha kale ee amni. marka madaxweynaha muxuu u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo la eegaya xaaladahan hadda jira? wallaahi xaalad cakiran ma jirto. haddii xogogaal u tihiin dalka waanad u tihiin. xaaladdu way degan tahay. arrimahan maanta ina hor yaalla waa arrimo sharci iyo siyaasad looga dabaalan karo. ma aha arrimo dagaal iyo fadqalalo lagaga dabaalan karo. marka mar walba waxaan usoo jeedinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isdejiyaan. kiiskan hadda hor yaalla ra-iisul wasaarahana waxaan jeclahay inuu si qurux badan uga dabaalan doono. arrimaha doorashooyinkana shir weyn baa madaxweynuhu ku baaqay.
shirkaasaa la isugu iman doonaa waana laga arrinsan doonaa jihada tan xigta ee la raacayo. laakiin dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena sharaftooda intaa waxaa inagaga warkii